اترك أثرا في دنياك. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولا ليال ما أنت واحد مبدع عينك قاعد دونا تربية عروتي أهمية داعي ضحي سيدا إنه ودرسون هاي إنه كريم مواهب البشرية يا بني آدم كلية هاي أما تقف هانين وتعيف كومنا إليه هاي تربية مركز لا يجو waxa ay tahay laba mowduuc ay kala baxdo koow tarbiyadu waa cilmi la barto oo aqoon ahaan loo qaato oo usuul leh iyo qawaacid la raaco sidoo kale waxay noqon kartaa tarbiyadu fanni ama wax gacanta laga qabto oo bini'aadamku uu sameeyo taasoo u baahan in la dhaqan geliyo lana shaqaysiiyo inagu haddaba ka muslim ahaan waxaan u baahanahay inaynu soo saarno dadkii aynu u baahanahay waxaan u baahanahay inaynu soo saarno qof muslima oo dhaba oo dhameystiran. Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu quraanka ku leeyahay ayuha alladhina aamanu qu anfusakum wa ahlikum naara kuwa iimaanka laga helayo waxa ehelkiina ka badbaadisaan iyo nafihiinaba naar ka badbaadiya waxaad ka badbaadisaan ehelkiina iyo ubadkiinaba naar ka badbaadiya. haddaba ilmaha in la badbaadiyo oo dhibaatooyinka adduunka laga badbaadiyo waxna la siiyo lana koriyo waxa ka muhiimsan in aakhiradiisa la dhiso in aakhiradiisa la kobciyo oo naar laga badbaadiyo. nabigeenu sallallahu alayhi wasallam waxa uu xadiis saxiix ku leeyahay kullukum raac wa kullukum mas'uulun an ra'iyati dhammaantiin mas'uuliyad baa idin saaran mas'uuliyadana waa laydin weydiinaya maalinta qiyaamaha qof kasta mas'uul buu yahay mas'uuliyadu intay doonto ha la ekaato ha noqoto mas'uuliyad madaxnimo oo bulshada dhan ha laga weydiiyo mas'uuliyadeeda ama ha noqoto mas'uuliyad ubad mid ehel qof walba mas'uuliyadiisu intay leegtahay ayaa la weydiinaya maalinta qiyaamaha. haddaba mas'uuliyadda carruurtu waa su'aal iyo mas'uuliyad maalinta qiyaamaha leena weydiinayo taasoo u baahan in loo diyaar garoobo sida in carruurta cuntadooda iyo biilkoodu ay waalidka u saaran tahay sidoo kale waxa u saaran tarbiyadooda iyo hagaajinta dhaqankooduna waxa ay u saaran tahay sidaas oo kale. horumar kasta oo aadanuhu raadsanay horumar kasta oo bini'aadamku daba carab waxa uu asala bini'aadamka ubadkuna waxa weeye raasamaalka ay ummadi leedahay. diyaarad kasta computer kasta shay kasta oo adduunka yaala waxa ka qaalisan bini'aadamka wax kastaaba waxay qiimo ku yeeshaan waxa soo saara. haddaba warshada soo saaraysa ubadku haddii ay xumaato ubadku waa u xumaanaya waxa soo baxaya in aan loo baahnayn waxa soo baxaya in aan qaadayn jidkii horumarka waxa soo baxaya ilma burburinayo horumarkii ay ummadu lahayd qiyamkii ay bulshadu lahayd akhlaaqdii ay ummadu lahayd. duwalka maanta adduunyada ugu waaweyn ee ilbaxnimada leh waxa ay ka cabanayaan ubadka. professor dhiga jaamacadka adduunka Mareykanka ayaa waxa ay ardaydiisu weydiinayaan su'aal ah maxaad u guursan weyday isla waxa uu ugu jawaabay ma doonayo inaan ku soo kordhiyo dhibaatada adduunka taala maanta mid la mid ah waxa uu dhibaatada adduunka maanta ay noqon weydo hooyadii loo baahnaa. sidoo kale bulshadu waxa ay waayeysaa ilmihii ay doonaysay ee dhisnaabay waayeysaa. uu sharcigu hooyada u dhigay guriga waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula waa sababta loo amray hooyadu inay guriga ku sugnaato waayo ubadkiiba guriga jooga rabayntii waqti ugu badan inay hooyadu guriga ku qaadato ayaa loo baahan yahay si ay u soo saarto ilmo dhisan oo bulshada la jaan qaadi kara bulshada raaci kara bulshaduna ay noqoto mid ay mahadiso. hooyadu waxa ay u baahan tahay si u tarbiyeyso ubadkeeda aqoon bay u baahan tahay waxay u baahan tahay aqoon sharci bay u baahan tahay waxay u baahan tahay mid tarbiyad bay u baahan tahay
waxay u baahan tahay sidoo kale mid psychology ahaan bay u baahan tahay waxay u baahan tahay dhammaan inay aqoon u yeelato baahiyaha uu leeyahay ilmaheedu intaasoo dhan ayaa laga rabaa hooyadu inay yeelato markii ay doonayso inay soo saarto ubad fiican oo iyada bedeli kara oo bulshadana wax tari kara sidoo kale Soomaalidu waayihii hore may lahayn aqoon tarbiyeed balse waxa ay lahayd aqoon waayo-arageed oo ay wax ku tarbiyeyso taasoo la iska soo gaaro waqtigan dambe waxa dhacay furfuran bulsheed dadkii way kala tageen aqoontan cusub iyo ilbaxnimadan cusub waxay ku sababtay kala fogaansho waxaad moodaa bulshadii inay ka tagtay waayo-aragnimadii hore ay Soomaalidu lahayd sidoo kale ma laha aqoon ay ku tarbiyeyso carruurteeda taasina waxa ay sababtay inay bulshadii soo baxaysay noqoto mid qalloocsan mid aan la mahadin mid aan horumarka fahansanayn mid aan qiyamka bulsheed iyo akhlaaqdeeda aan ixtiraamayn mid aan iyadu nafteeda aanay waxba u taraynin marka barnaamijkeena xiga waxaanu kaga hadli doonaa sifooyinka uu leeyahay qofka wax tarbiyanaya ee fiican aabe ha noqdo ama hooyo ha noqdo intaa waxaan kusii daraya hooyadu waa kaalinta koowaad ee qofka soo saarta sidaa awgeed culimadii muslimiinta kuwii ugu waaweynaa aabayaashood badankoodu way dhinteen waxaa soo korisay hooyo keliya imaamu shaafici imaamu axmed binu xambal ibnu alxajar alcasqalaani culimada islaamka badankooda waxaa kaalintii aabanimo u buuxisay hooyo fiican